السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa wuxuu ciwaankeedu yahay ama ay ku saabsan tahay samafalka faa'iido uu leeyahay. Qisadan ayaa wixii ku dhacday oday beeraley ah oo isla markaana deganaa meel tuulo ah. Odaygan beeraleyda ayaa wuxuu qabay wiil yar, wuxuuna ka shaqayn jiray beertiisa. Ma uusan qabin cid kale kaalmayso, hase ahaatee mar waliba wuxuu ahaa nin dadaal badan isla markaana ka fikir noloshiisa. Odaygan ayaa mar waliba wuxuu ahaa inuu soo shaqaysanayo, hase ahaatee maalinka uu xanuunsado ama dhibaato la soo gudboonaato ma uusan haysan qof garab istaagto. Sida ayuu iskaga qanacsanaa maxaa yeelay adduunyadu wax kale kama qabin oo aan ka ahayn beerta yar. Mar waliba wuxuu ka fikiri jiray mustaqbalka wiilkiisa. Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday isagoo beertiisa dhex joogo ayuu wuxuu arkay eygii beerta u wardiinayay oo aad u qaylinayo. Markaasuu soo cararay, markaasuu wuxuu arkay wiil yar ku dhex dhacay webiga, isla markaana xaaladiisu adag tahay. Ma uusan ka fikirin noloshiisa, balse webiga ayuu isku tuuray si uu soo badbaadiyo cunugan yar. sidii ay ku galay webigii, markaasuu soo badbaadiyay cunugii. Maalinkii xigtay ayaa wax dhacday isagoo gurigiisa ka joogo ayaa waxa u yimid wiilkii yar oo badbaadinayay iyo aabihiisa oo wada socdo. Aabihii ayaa ku yiri ninyahow abaalkaaga ma gudin karo maxaa yeelay wiilkayga ayaa ii badbaadisay, sidaa darteed maanta waxaan jeclaystay inaan kuu abaalmariyo wax waliba oo doonayso hantiya. Maanta fursad ayaa haysataa ay weydiiso. Aabihii ayaa ku yiri u jawaabay wax hantiya ma kaa doonayo maxaa yeelay anigu ma aanan qaban wax gooniya, wixii qaban lahayd oo kale ayaan qabtay oo wiilkayga waa wiilkii oo kaleeto, sidaa darteed wax abaalmarina ma kaa doonayo. Aabihii ayaa ku yiri maadaama wiilkaygu uu wiilkaaga kale yahay ii ogolow in wiilkaaga iyo wiilkayga wada noolaadaan isla markaana aan aniga kafaalo qaado waxbarashadiisa mustaqbalkiisa. Aabihii aad ayuu u farxay maxaa yeelay mar waliba wuxuu ka murugaysnaa mustaqbalka wiilkiisa iyo waxbarashadiisa. Wiilkii yaraa sidii ayaa odayga ku soo watay, wuxuuna la noolaa wiilkiisa. sida ay waxbarashadii ku wada bilaabeen. Wiilkii marba mar ka sii dambayso horumar ayuu sii sameynayay ilaa markii dambe waxbarashadii uu dhameeyay wuxuu noqday dhakhtar magaalada caanka ah. Muddo ka bacdi ayaa waxa dhacday odaygii wiilkiisii ayaa xanuunsaday, kaasaa isbitaalka la geeyay. Wiilkii yaraa dhakhtarka ahaa ayaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sabab u dhigay inuu gacantiisa ku daaweeyo. dadaal dheer ka bacdi Allah subxaanahu wa tacaala wiilkii waa u caafiyay. odaygii markuu arkay wiilkiisii oo soo caafimaaday ayuu garan waayay wuxuu sameeyo. markaasuu ku yiri wiilkii dhakhtarka ahaa waxaan kuu hibeeyey hantideeda barkeed. wiilkii ayaa ku yiri maya, ma doonayo wax hanti ah maxaa yeelay aabihii ayaa wuxuu iga dardaarmay haddii aan wanaag qof u sameeyo inaan ka sugin inuu ii mahad celiyo. sidaa darteed wanaaggii aan sameeyey waxaan ka sugayaa Allah subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay isaga ayaa igu filan isla markaana iga warqaba xaaladeyda oona ii abaalmari doono adduunyo aakhiraba. marka sidaa darteed adar waad bahasan tahay, hantidaad iska hayso, wiilkaagana Allah ayaa ku caafiyey, anigana abaalkii aad ii gashay ma gudi karo. qisadani halkaa ayay ku eg tahay. hase ahaatee qisadan waxaan ka faa'iideynaa haddii aad abaal gasho Allah subxaanahu wa tacaala kuma mooga maxaa yeelay muhiimaddu ma ahan bini'aadanka aad abaal ku gashay inaad ka sugto inuu ku abaalmariyo. hase ahaatee waxaa ka weyn mar waliba midda Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa ku taalo oo Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofka wanaag sameeyo camalkiisa ma dayaco. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub fadlan sabskraib dheh isla markaana la wadaag asxaabtaada si ay ayagana uga faa'iidaystaan. mahadsanid.